يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. galab wanaagsan magacaygu waa Samii su'aashaydu waa maxaa xaasaska loogu ogoleen in ay furaan nimankooda diinta islaamka walaasha su'aal bayna weydiisay waana maxaan gabdhaha loogu ogoleen inay nimankooda furaan arinta ku saabsan furitaanka walaashay si guud furitaanka waxaa loo qaybin karaa 5 qaybood tan ugu horeysa waa raalli ahaansho ka dhaxaysa labada lamaani waa qaybta koobaad qaybta labaad hal dhinac ayay ka socotaa waana dhanka ninka qaybta saddexaad waa haddii lagu sheegay heshiiska marka nin guursanayo gabar ugu horreynba heshiiska ayaa lagu qorayaa ninka dhankiisa ayay ku socotaa sida quraankaba lagu sheegay waa maxay sababtu dib baan ka sharxi doonaa haddaba guurku waa heshiis u suurtagelinaya haweeneyda inay dejisato shardi kasta oo heshiiskaasi ku doonayso arrintaasina quraanku ma diidana xitaa waxay dhihi kartaa aniga ma doonayo ninkayga inuu ila guursado xaas labaad maxaa yeelay guursashada hal haween wax ka badan waajib kuma aha diinta islaamka haddii ninku waafaqo waa caadi uusan ku waafaqin way iska tagaysaa nin kale helaysaa haweeney kale ayuu helayaa balse waxaa u suurtagala inay dejiso shardi ah inaysan doonaynin ninkeedu inuu xaas kale la guursado maadaama iyadu suurtagal ma aha inay dejiso shardi ka soo horjeeda quraanka tusaale ahaan ma dhihi anigu ma doonayo inaad tukato maxaa yeelay salaadu waxay waajib ku tahay qofka muslimka ah shuruudo bannaan bay dejisan kartaa sidoo kale shuruudda waxay ku dari kartaa in ninku iyada furi karo haddii ay doonto arrintaana waxaa lagu magacaabaa dalaaqu tafwiid midaasi waa qaybta saddexaad qaybta afaraad waa haddii aysan iyadu shuruudda ku qorin balse intaa kadib haddii ay furiin doonto waa inay ninkeeda ka dalbataa inaysan doonin inay la noolaato oo ay furiinna ka dalbato waxaa lagu magacaabaa khulac qaybta shanaadna waa marka ninku waafaqsanayn si xunna ula dhaqmayo waxaa u suurtagala inay maxkamadda tagto oo ay iska fasaqdo kuwaani waa shuruudda guurbaabi'inta haddii uu si xun ula dhaqmayo ama uusan xuquuqdeeda siinaynin garsooraha ayay u tagaysaa nikaaxa ayay iska fasaqaysaa haddaba haweeneyda xitaa waa u suurtagal inay furiinka qaado balse sida caadiga ah furiinku wuxuu gacanta ugu jiraa ninka sabab maxaa yeelay guurka qofka ku khasaaraya waa ninka ee haweeneyda maaha weliba haweeneydu way faa'iidaysaa haddii aad dhegaysatay muxaadaradeedii usbuucii hore xuquuqda haweeneyda ee diinta islaamka ma la ilaaliyey mise waa la dayacay waxaan sheegay in haweeneyda marka guurka la joogo ee iyadu faa'iideyso quraanku wuxuu ku sheegay suuratu nisaa suuradda 4 aayadda 4 siiya haweenka meherkooda isagoo waajib ah waa meherka guurka ninka ayaa dhiibaya meherkuna intuu rabo ayuu noqon karaa gabadhu intaysan guursan ka hor aabbaheed iyo walaalkeed ayaa muhiimadda siiya oo daryeela markay guursato kadibna ninkeeda iyo wiilkeeda ayaa daryeela arrin kastoo ku saabsan nolosha balse haddii furiin dhaco waxaa waajibku saaran yahay labadeeda waalid haddii aysan jooginna waxaa waajibku markaasi korayaa bulshada ama mujtamacay ku nooshahay haddii markaana bulshada la waayo dowladda ayay arrinteeda dul saaran tahay marka laga hadlo diinta islaamka haddaba mar kasta way ilaashan tahay haddii furiin dhaco ninkii wax furay ayaa khasaaraya meherkii ayaa ka khasaaraya balse haweeneydu mar walba way faa'iideysaa haddana haweeneydu waxay xaq u leedahay inay guursato haddii ay guursato meher cusub ayay helaysaa balse ninkeedii hore haddii uu doono inuu guursado mar kale meher cusub oo kale ayuu dhiibayaa balse haweeneyda haddii waajibaadka loo dhiibi lahaa oo guurka iyo furiinkana loo dhiibi lahaa maal unbay urursan lahayd haddaba yaa khasaaraya waa ninka alle subxaanahu wa tacaala ninka xitaa wuu ilaaliyey waxaa laga yaabaa inaan u baahannahay muxaadaro ku saabsan xuquuqda ninka ee diinta islaamka haddii furiin dhaco ninka ayaa ka khasaaro badan haweeneyda maaliyad ahaan iyo dhammaan wadooyinka kaleba balse haweeneydu waxay ka ilaashan tahay dhanka qoyskeeda ama bulshada ama dawladda waa sidaas ninka maya sida darteed Allah subhanahu wa ta'ala wuu ilaaliyaa ninka balse haddii ay haweeneydu u baahan tahay waxa u suurtagal inay heshiiska guurka ku qorto arrin ka yeelaysa inay awood u yeelato ninka inay furto ama waxa u suurtagal inay furiin ku dalbato qaabka quluca haddii ninku ku waafaqina maxkamadda islaamiga ay aadaysaa guurka ayayna burburinaysaa waxaana lagu magacaabaa fas waxaan rajaynayaa inaan su'aashaada ka jawaabo mahadsanid فاستمسكي يا نفس بالمعنى
المجد العظيم الأمنع صلى عليك الله